Alexander Litvinenko wuxuu ahaa sarkaal marna sirdoon u shaqeeya Ruushka, waxaana ka mid ahaa kuwa ugu cadcad ee ku amaanan shaqo wanaagiisa iyo jacaylka uu jecel yahay dalkiisa Ruushka. Laakiin mar quraata ay xaaladdu isbedeshay oo uu noqday cadow ay diidayaan min askaritu madaxweynaha Ruushka. Alexander wuxuu dhashay 1962 uu ku dhashay magaalada Voronezh ee dalka Ruushka. Kadib markuu ka qalin jabiyay dugsigii sare wuxuu galay dugsi ciidan oo la yiraahdo Kirov. 1985 ayuu dugsiga ciidanka soo qalin jabiyay waxaanu noqday hogaamiye guud ciidan. Sanad kadib sanadka oo ah 1986 waxaa loo magacaabay inuu noqdo sirdoon u shaqeeya dalka Ruushka. Isla sanadka wuxuu noqday sarkaal ka shaqeeya KGB. KGB waxay ahayd wakaaladda amniga amba wakaaladda sirdoonka ee Soviet. Laakiin 1995 markii midowgii Soviet dhacay ayaa magaceedii loo bedelay FSK. Yar kadibna waxaa loo sii bedelay FSB. Isbedelada faraha badan ee dhacay wakaaladda ku dhacay isaga wax saameyn kuma yeelan oo booskii shaqadiisa uu sii haystay. 1997 ayaa la dilacsiiyay oo laga dhigay agaasimaha wakaaladda amniga amba sirdoonka federaalka Ruushka. Alexander markii loo magacaabay shaqadaas ayaa wuxuu ogaaday in sarkaallo Ruush ay la shaqeeyaan mafiyada Ruushka. Kadib waxa uu tagay Putin oo markaa ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka una sheegay arrinta, isagoo ka waramaya sida uu qaabilay ra'iisul wasaaraha amba madaxweynaha imikana ah ee Ruushka ee Putin. Wuxuu yiri waxaan dareemayay sidii inaan ag taaganay cadowgayga, sidii uu soo eegayo amba indhahayga gubayo. Alexander kadib markii uu wargeliyay ra'iisul wasaaraha dalka xaaladda ay saraakiisha qaar ku sugan yihiin iyo inay gacan siiyaan ay la shaqeeyaan cidda nabadda dalka khatarta ku ah ee mafiyada, waxba kama qaban. Kadib Alexander wuxuu go'aansaday inuu saxaafadda la kulmo oo wax kastana u sheego bulshada. Waanu soo fadhiistay Alexander saxaafaddii isagiyo saaxiibo kale uu leeyahay. Inkastay saaxiibadiisa qaar wajiga qasadeen, waxaanu u sheegay wax kasta oo u sheegay inay sarkaaladaas la shaqeeyaan mafiyada iyo sidoo kale in ra'iisul wasaaraha uu wargeliyay aanu ra'iisul wasaaruhuna waxba ka qaban. Isla maalintaas ayay u bilaabantay Alexander inuu galo nolol adag. Isla maalintaas shaqadiisii ayaa laga eriyay sidoo kalena waxa lagu yiri kama bixi kartid dalka. He said, Marina, we have two ways. One way they will kill me and another way they will arrest me. Litvinenko was arrested and spent over a year in jail. Alexander wuxuu galay xaalad khatar ah isagoo dhinac cadow kula noqday mafiyadii, dhinacna cadow ula noqday dawladdii, ciidamadii iyo saraakiisha iyo sirdoonka dalka Ruushka. Alexander maadaama uu ka shaqeynayay arrimaha sirdoonka uu ka warhayay xaaladda adag ee naftiisa soo wajahday. Sidaa awgeed waxay si qarsooniya isagii reerkiisii uga baxsadeen dalka Ruushka isagoo weydiistay amni sugid dalka UK. Waqtigaas waxa ahayd 2001 waxaa la siiyay dhalashada dalka UK. Kadib waxa uu qoray buug uu ciwaan uga dhigay Blowing Up Russia. 2006 ayaa fuuqbax iyo matag fara badan awgii jidhkiisu u daciifay, kadibna dhakhtarka la jiifiyay. Baaritaan fara badan markii lagu sameeyay Alexander waxaa la ogaaday in jidhkiisa ay ku jirto polonium 210. Polonium 210 waxa weeyaan maado sun ah oo halis badan oo giraamkeeda quraata 5 milyan oo qof dili karta. Sidoo kale 5 milyan oo kale xanuun ku ridi karta oo dhakhtarka jiifin karta.
kadib markii dhakhaatiirtu ogaadeen in jirkiisa maadadaas sunta ay halista badan leh ku jirto, waxaa la ogaaday in la sumeeyey. hase yeeshee Alexander wuxuu garan waayey cidda sumeysay iyo halka laga raacay. xasuustiisii markuu dib u celiyey, wuxuu ogaaday markii ay shubanka iyo hunqaacada iyo matagku ku bilaabmeen inay ahayd mar uu la kulmay rag ay saaxiib ahaayeen oo ciidamada tababar ay soo wada qaateen, sidoo kalena ay isku meel ka shaqayn jireen, oo la kala oran jiray Lugafo iyo Cofton. kadib ciidamada dalka UK ayaa dabagalay labada nin. kadib waxaa la helay in Cofton magaaladii uu degnaa ee Hamburger intaanu iman London, hodheelkuu ka deganaa, in qolkii uu deganaa laga helo maadadii polonium qaybo ka mid ah. sidoo kale gaadhigii uu watay laga helay maadadii polonium. kadib hodheelkii ay ka degnaayeen London ee uu ku soo booqday Alexander, in miiskii ay ku cunteynayeen laga helay maadada polonium. sidoo kale keliga shaaha laga helay maadada polonium. maadaama Alexander uu markuu saaxiibadii la kulmay uu ka cabay koob shaaha oo ah shaaha akhtarka ay ku marti qaadeen, koobka shaaha ayay ugu dareen. laakiin markii ay sumeeyeen Alexander wadankiisa dhaqso abay uga baxeen oo waxay ku noqdeen dalkii Ruushka. qaybaha poloniumka ee kalba ay meel kaga imanayeen, inkastoo xaddii yaq ahayd oo baaritaan lagu helayo aanu qof indhihiisa ku garanayn ahayd, haddana waxay sababi karaysay oo dili karaysay 700 oo qof. laakiin alxamdulillaah cidba waxba kuma yeeloobin. 22 cisho kadib Alexander wadnihiisii ayaa istaagay, halkaasaana ku dhintay 23 Noofambar 2006. dalkii UK waxay ka dalbadeen dalka Ruushka inay u soo gacan geliyaan labada nin ee sumeeyey Alexander. hase yeeshee Ruushku way ka diideen maadaama iyagu ahaayeen cidda soo dirtay. UK-na waxay eedeyn ay dusha kaga tuurtay dalka Ruushka, iyadoo ku eedeynaysa inay sumeysay Alexander. qisada maanta intaas naga eeg tahay. intan hadda dhageysanaysa waa mahadsantihiin. like iyo subscribe saara. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.